10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. وعنا wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka magacayga waa Ifraax waxaan rabaa maanta inaan la wadaago barnaamij gaaban oo ku saabsan waxbarashada isweydii adigu maxay tahay waxbarashada sidee wax loo bartaa maxaa weeye muhiimadda waxbarashada qodobadaas iyo kuwo kale ayaan doonayaa inaan la wadaago maanta haddii aan ku bilaabo maxay tahay waxbarashada waxaan rabaa kow inaan qiso yar in la wadaago oo aniga gaar ahaan ii ah alxamdulilah inkastoo anaga waan soo qaxnay dagaalka sokoyada awgeys waxbarashadayda dhinac ooguma dhicin waalidkayga iyo anigaba aad baan ugu dadaalnay dugsi hoose dugsi saraba waan soo maray markii aan jaamacadda bilaabay waxoogaa detour nolosha ila qaadatay waxaan ku noqday hooyo 20 jir anigoo wax baranayo markii ugu horeysay waxay danta igu qasabtay inaan waxbarashada iska joojiyo markii dambe waan ku laabtay laakiin aad bay u adkaatay single mother ahow shaqe maxaa la yiraahdaa waxna baro markii ugu horeysay waan damcayna isku wado way ii suurtageli weyday mar waxaa jirtaan waxbarashada dhanba iska daayabo laakiin noloshana way dhadhami weyday waxaan isrimaan kasta ma call center baad aaday Ifraax intaan kaliya ma noloshana qaraar bay la noqotaba marna waan damcaynaan shaqadan part time aado schoolkan part time aado laakiin waxa maadadan baranaya science marna class wuxuu leeyahay subaxda galaaskiisa kalena waxa way galabta ma subaxdan shaqeeyaa mise galabtan shaqeeyaa maalinka dhan schoolka leega rabay schoolka waxaan dareemo inaaba loogu talagalinbo dad hooyo iyo aabba markii dambana shaqada waa iska daayay laakiin nolosha aad ciriiri u noqotay markaasna wax baro kaliya ma buugyaashaan cunaa ciriiri bay ugu noqotay nolosha markaasna laakiin waan adkaysaday danta waxay ugu qasabtay inaan shaqada ku laabto waayo buugyaashan lama cuni karo wiilkana hooyo waan ku jeclaa hab aan ku siiyo caloosha cunto ma gelinayso marka shaqada waan ku laabtay part time baan shaqaynayay saan u wada hadee 8 sano ay ugu qaadatay waan dhameeyay marka waxbarashada agtayda meel weyn bay ka taalaa aad bay muhiim igu tahana marka waxaan rabay inaan la wadaago oo in sheego ahmiyadda waxbarashada horta sidee wax loo bartaa haddii aad weligaa waxba baranin aad buug iyo qalan aad soo qaadan horta kow waad inaad meel ka bilowdid inaad go'aan gaartid aad waxban baranayaa aad markaas qorshe aad suubsatid sidaad wax u baran lahayd waxaan kaaga sheekayn karaa inay tahay wax aad u adag waxbarashada aan in badan la kufaayo oo lagu jabaayo oo danta kugu qasbayso inaad mar kasta haddii wax muhiim kuu tahay aad kacdid adigoo disappointment iyo calool xumo iyo wax badan ay kuu imaado haddii aad rabtid inaad wax baratid go'aanse inaad wax baratid haddadaan iskuul isku soqor haddadaan aad go'aan gaar qorshe subso kuna adkayso balaankaas ha ka leexanin wax kastaba ku soo marabo wadadaas toosan ha ka leexanin wax badan waa la kufi waa la dhici nolosha dhinac bay ku tuure nolosha sidaas keenaysid laakiin qorshahaada ku adkayso go'aankaadana ku adkayso inaad wax baratid aad bay u adagta waxbarashada laakiin faa'iido badan bay leedahay waxbarashada heerka sare oo jaamacadda haddii aan ka hadlin xataa waxbarashada kow laga bilaabayo wax inaad qortid wax inaad akhrisid taasna aad bay muhiim u tahay dad waxaan horay la kulmay oo alxamdulillah aniga yaraan baan wadanka ka soo tagay oo ayagoo weynaan ka soo tagay oo waxba baranin oo meeshaan markay imaadaan danta ku qaliftay inay horay shaqo ka tagaan ay wax baran karin oo markaasna warqado marka loo soo diro warqadahooda ay akhrisan kareen application markay buuxinayaan ay buuxsan kareen balamahooda markay telefoonka haday rabaan dhakhtar inaa loo waco oo telefoonka inay dhakhtar wacaan ay wacan kareen dhakhtarkooda marka waxbarashada akhriska iyo qoraalka iyo dantaada guud inaad adiga qabsan kartid oo dantaada adiga gaar ku ayna qabsan kartid way muhiimadeeda tahabo waxaa jirta dad kale aad rabin inaad la wadaagtid qof kasta warqadaada kuma akhrin karo warqadaada kuma qori karo
private informationkaada ma aha inuu qof kasto inuu haysto waa adiga inaad noloshaada aad inay qaas ku ahaato marka waxbarashada kaliya ma inaad heer jaamacad aadid oo dhakhtar aad noqotid mise macallin aad noqotid waa inaad dantaada xataa kaliya aad qabsan kartid laakiin jaamacadana waa loo baahan yahay dakhtariintana waa loo baahan yahay macallimiintana waa loo baahan yahay alxamdulillah aniga waxbarashada waxay ii ogolaatay inaan anigana hadda wax baro yani macalliga aniga ardayga ahaa shala haddana maanta macallin baan ah aad baan ugu faraxsan uma malaynaya in adduunkan haddee waa inay shaqo ka fiican jirto macallinnimada taas aan dareenkayga ku leeyahay inay macallinimada adduunka ugu fiicanta wax shaqo la qabtabo waxbarashadeeda waxay ii ogolaatay ii suurtagelisay aniga inaan macallin ahaado oo aniga inaan hadda dad wax baro waxaan maadada aan dhigo waa chemistry waxaan ka dhigaana dugsi sare oo ku yaalo Mareykanka af Ingiriis baan ku dhigaa adiga 90% maalinkayga af Ingiriis baan ku hadlaa marka waxaa ku leeyahay waxbarashada aad bay muhiim u tahay waxay u baahan tahay dadaal miiran waxay u baahan tahay waqti badan waxaadna ogaataa haddaad in yar xataa galaas u qaadatid mar inay kaa dhammaan doonto haddaad ku socotid mar bay kaa dhammaanaysaa guushaad waad gaaraysaa aqoon la-aan waxaa la dhihi jira waa iftiin la-aan runtii way tahay iftiin la-aan markii haddaan inkaga sheekeynaya dadka warqadahooda akhrisan karin mise ballamahooda telefoonka ku qaban karin taas waa mugdi waa iftiin la-aan marka inaa waxbarashada aada muhiim u tahay sidaas aad ku ogaanaysaa haddii aad doonaysa wax inaad baratid bilow go-aankaas gaar meel ka bilow in yar ku wad marba waad gaari doontaa dhammaadkeeda aniga waxay ugu qaadatay 8 sano jaamacad adiga loogu talagalay 4 sano waxay ugu qaadatay 8 sano waay danta nolosha igu kalaftay inaan hooyo ahaado inaan shaqeeyo marna inaan wali damac weyn igu jiro oo waxbarasho ah marka dantaas kalaftay sidaas laakiin niyadeeda markasta waxaan geliyay way dhammaan doontaa haddaan socdoba way dhammaan doontaa wadadan wadada ku soo xigtana insha Allah waan u gudbay tan ku soo xigtana insha Allah hada doctoraysa Farxina magac lagu kordhiyana waan doonayaa waan rajeynayaa marka inaad niyeysatid meesha gaaraysid guushaada inaad niyeysatid inaad ogaatid inaad gaari doontid inaad quusanin inaad laga dhadhicin xataa meel ma gaaraysid dad badan way jiraan oo ku dhahaya aniga horta waxa lagu yiri markaan kow ilmahayga dhalay waxa la yiri ma waxbarashada wali rajeynaysaa sheekadaas way dhamaatay naga daa hooyo baa tahay hadda ya dad badan way jiraan niyada ka jabinaya waa inaad is ilaalisid oo aad maskaxdaada iyo hamigaada aad ilaalisid dadkaas ku dhahayana ma suubin kartid ma gaaraysa heerkaada aad iska fogeysidbo waxay yihiinbo laga yaabo qaarkood inayba waa heerkaada way yihiinbo dadka sidaas niyada kaaga jabinaya waa inaad maskaxdaada niyadaada iyo hamigaada inaad ilaalisid waay go'aankaas adag inaad gaartid wadadaas inaad ku socotid qodobka kale aan rabay inaan wadaago waxa weeye maxaad wax u baranaysaa waxay ku xiran tahay waxbarashada muhiimadeeda waxbarashada adiga kaliya kuma saabsano kuguma koobano dadka kula xiriir xataa way ku daawanayaan haddana ilmo yar baan haystaa oo go'aan maalin kastaba ugu idhaha markaan jaamacadda aado waxaan baran doonaa markaan jaamacad aado wuu niyeysaday inuu jaamacad aadayo wuu ogyahay inay nolosha qayb ka mid tahay oo next step inay tahay markuu dugsi hoose dhameeyo dugsi sare dhameeyo markaas ka bacdi inuu jaamacad aadayo walaalkayna wuu ogyahay walaashayna way ogtahay dadka kugu xiriiro way ku daawanayaan waxay kaa dhiganayaan role model tusaale waxbarashada waxay also kuu suurtagelinaysaa inaad bulshadaada ka mid ahaatid inaad bulshadaada wax u tartid waxbarashada kaliya kuguma saabsano sidoo kale waxbarashada waxay kaa dhigaysaa qof xor ah oo adduun weynaha meel kasta waxbarashadiisa la aadi karo aqoontaada meel kasta waa la aadi kartaa meeshaad doontid hamigaada ku siiyabo waa la aadi kartaa bulshadaada xataa waad ku caawin kartaa communitygaada xataa waad u shaqayn kartaa waxbarashada waxay u tahay fura noloshaada waxaad noqon kartaa siyaasi waxaad noqon kartaa ganacsato waxaad noqon kartaa qoraalo oo bulshadiisa bedelayo waxaa jira nin Mareykan Frederick Douglass la dhaho wuxuu ku dhashay slave adoon hooyadii adoonsiba wadankan ka jiray hooyadiis iyo aabihiis adoon bay ahaayeen asagana sidaas buu ku dhashay wuu ka cararay wax buu bartay ilaa iyo haddaba sheekadiisa waa la hayaa wuxuu dhintay 1895
wuxuu ahaa social reformer bulshadiisu wax ka bedelay wuxuu ahaa qoraale writer buu ahaa wuxuu ahaa philanthropist bulshadiisu aday wax siin jiray oo dadku community-gu wax siin jiray saka iyo charity badan buu bixin jiray waxbarashadiisa uu ogolaatay waxaas dhan inay u suurta gasho inuu wax qoro inuu bulshadiisa wax ka bedelo marka waxbarashada heer meel dheer ba lagu gaari karaa taariikhda bani'aadamka markaad fiirisid dadka wax nolosha ka bedelo waa dad maxaa la yiraahdaa ogaa oo xamiyeysay inay wax qaban karaan inay nolosha wax ka bedeli karaan wayna suubiyaan dad kalena wax ku dhahayaan ma suubin kartidna ma dhageysan oo dad hoos bay ku socdaan marka qorshaha marka muhiimadda ugu weyn waxaa weeye inaad go'aan gaartid inaad wax baratid markaasna wadadaas toos aad ku socotid qodobka kale aan rabay inaan la wadaago wuxuu ahaa maxaadan wax u baranaynin laga yaabaa inaad joogtid wadan waxbarashada aad u adag tahay oo dowladda aad ku caawinayaad haysanin oo waalidkaadana dad adeedan yar oo wax badan haysanin ay yihiin ay kuu suurtagaleen inaad wax baratid waxaan kugula talin lahaa inaad hamigaas uu kaa dhumin aad weligaa aad riyeysatid oo niyeysatid inaad wax baran kartid waxbarashada kaliya iskuul inaad aadid oo macallin hor fadhiidid ma aha way fiican tahay inaad iskuul aadid oo macallin hor fadhiidid oo aqoonta sidaas aad u heshid laakiin waxbarashada ma aha kuma koobna kaliya class inaad aadid meel kasta waxaad ku baran kartaa gurigaada waxaad ku baran kartaa buug haddaad qof oo dariskaada mise saaxiib kula ah oo wax baranaya xataa haddaad bugaasha wax ka qoratid haddaad dhahdeed kan muxuu yahay dadka haddaad weydiiso su-aal most of the time udug badnaan way ku jawaabayaan dad way jiraan dad haddee oo niyadda kaasii dilaya dadkaas ha u bixin ha u dhagaysanin dadka ku caawinayo oo ogol inay ku caawidaan kaliya maqal qofka weydii kan muxuu yahay eragan micnaheedu maxay tahay hadda mar dhow hadayd waxaan la wadaagaynay Soomaaliga badnaanta maalinka waxaan ku hadlaa af Ingiriis 9% af Ingiriis baan ku hadlaa mar qaarkood ereyada Soomaaliga way iga dhumayaan qof baan weydiin hebel maxaa la yiraahdaa waxaas af Ingiriis saas baa lagu af Ingiriiska ereyga san waaye af Soomaaligiis maxaa waaye dad qaarkood way kugu jeesjeesi waxay ku dhiyaan tanu ama af Soomaali ma taqaanee qurba jooga way dhumeen qofna wuu ku sheegi qofka wax kuu sheegaya oo ogol in wax kuu sheego qofkaas kaliya maqal qofka kugu jeesjeesayo ku xumeynay ha u bixin ha dhageysanin asaga u taala dadka fiican kaliya oo wanaaga wada dadkaas kaliya dhageyso dad waxaa jira laakiin ayagoo opportunity haysto oo wadankan aniga haddan joogo mise wadamaha kale adiga first world adduumaha koowaad oo weli wax baranaynin dadkaas waxaan rabaa inaan ogaado maxaad wax u baranayn ma shaqadaad laajeega yarka aad soo qaadanaysa kaliya ma kugu filnaaday mise waxbarashada hami uma lihid mise uma malaynaysid inaad wax baran kartid dadku waxaa jiro markay dugsi sare ay dhiganayaan wax badan ay la kulmaan oo niyadda ka jabiyo oo markay weynaadaan haday high school diplomada soo qaataan midhaanbo iga daabo horta waxbarashadaan waan haysaa warqadan yarta tan baan ku shaqo tagayaa kaliya marka uma malaynay dad inay jiraan wax baran karin dadaal bay ku xiran tahay dad way jiraan wax dhaqso wax u qaato dadna way jiraan waqti badan ay ku qaadanayso waa inaad is ogaatid midkeed tahay adiga ma dadaal badan maad u baahan tahay waqti dheer maad u baahan tahay mise qofku hore wax ku qabanaya ma tahay mar qaarkood waxyaalo qaarkood aniga way ugu adkaan jiraan hore uma qaban karin laakiin waxaan ogaaday dadaal inaan muujiyo waay maxaa la dhihi jiray af Ingiriis waxay dhahaan hard work beats talent anytime. Okay, so hard work waa dadaalka shaqada aad subinaysid beats talent. Talentna waxaa waaye qofka dhaqso wax u qabanaya. Dad waxaa jira aqoonta dhaqso u qabanaya, dad waxaa jira basketball si fiican u ciyaaraya, dad waxaa jira football si fiican u ciyaaraya. Laakiinse hadday dadaal muujinin qofka like talentkaas haysanin oo dadaal badan muujinaya wuu ka sarreyn karaa maalin. Mar kastaba hard work baa muhiimadda dadaalka muhiim ah. marka haysnihin wax ma baran kare waan weynaaday hooyo baan ahay aaba baan ahay way idhaaftay taas in yar meel ka bilow niyeyso haddaan opportunity haysan oo aan wali hooyo aaba noqonin opportunity-gaada ka faa'iideyso qof yar haddaad tahay oo wali waqtigaada aad leedahay lacagtaada wali aad leedahay aad reer aad ku biilanaynin waqtigaada ilmo aad la wadaagaynin waqtigaada ka faa'iideyso waxaa ku diiday inaad wax baratid waad suubin kartaa waad gaari kartaa waqti dheer ha kugu qaadato xataa 10 sano digriga ugu horeeya kugu qaadato xataa 8 sano almost 10 sano igu qaadato anigaba
waad gaaraysaa mar hore u soco intaasaan kusoo koobaynaa maanta barnaamijka waxbarashada insha allah wiiga dambana mawduuc kale ayaan siin diyaarinaynaa subscribe like share garee videoga nala socona Sona Productions haddaad su'aalo qabtid commentka noo dhaafa haddii kale kulan dambe next week mawduuc dambe ayaan soo gudbin doonaa insha allah haye maalin wanaagsan habeen wanaagsan meel kasta adduunka joogtid